maantayto waxaan rabaa qof inaan ka farxiyo haddaba markii ay kugu soo dhacday fikradaasu sida aad qofka uga farxin lahaydna aad doonaysid sidee u samayn karaa farxadiisa ma rabi maanta keliya inaan magaalada ka imaado soo baxo qof u imaado inaan ka farxiyo taas suurta ka noqon mayso qofkan wuxuu ku farxayo ma ogadba bilaa waxaad u keentaba ku xanaaqiyay kula dagaaliyay haddaba si aad uga farxisid qofkan walaalkaaya ama farxadiisa uga mid noqoto horta muxuu taageersan yahay muxuu jecel yahay in rabaa horta asagu wuxuu doonaya maxay tahay soo raadi marka hore control markaas ka bacdi u samee qofkan maanta wuxuu ku farxayaa waxaas farxaya saas farxaya bal مثلا baa anigoo kale maanta waxaan ku farxayaa subscribe channelkayga markaan arko qof ku soo kordhay laba qof ku soo kordhay saddex qof ku soo kordhay farxad ay tahay sababtoo ah waxa u jeedaa mustaqbal marka qofkaas aad uga farxisid waxaad samaysan kartaa wax aad ku uga farxisid hebel maanta waxaas ma uga farxin karaa uga farxin karaa hebel saas ma laga farxin karaa hebel saas maxaa taageer dunida maxaa u jeceshaa waxaas ugu jeclaa wixii ma samayn karaa hadda samayn kadib u samee haddii aad samayn karin wax labaad ma sheegi karaan waxaas kale wax aad u adeeg waaye kow iyo laba ugu sahaaga noo sheeg aan dhahan ana qof markuu wuxuu ku sheego aan looga farxiyaa laakiin ma soo kacaya galada imaanaya waxba iska gadahaya ku uga farxinaya suurtagal ma noqonayso sababtoo qofku wuxuu ku farxayo ma ogi si aad walaalkaaga uga farxisid la dhaqan nafsadiisa marka hore weydii wuxuu ku farxayo dabagal ku samee kow intaad u soo baalkeen ayadoo baraanka camal ku soo samayso kadib markaas ka ugu hawood aad wixii u samaysid aad sida sameeynin ugu farxadda adiga rabto qofkaas inaad siisid ma guulaysanaysid sababtoo ah hayba qofku afkaan bas ku dhaqaajinay ama kaaga matalayo inuu faraxsan yahay laakiin niyad ahaan ama hoos ahaaneed isku ka faraxsaneen sababtoo ah aniga gaan haddii maanta leykano wax aan ku faraxsaneen telefoon kale maanta leykano ma ku faraxsaneen sababtoo ah wax ka weyn baan rabaa oo ah subscribe channelkayga habtuna kale kuma faraxsaneen sababtoo waan haystaa marka qofka wuxuu ku faraxsan yahay in ismaysid ayaa noqonaysa qofkan farxadiisa si aad uga farxaysid walaalkaaga Soomaaliyeed isku day marka hore in la dhaqanto kadib la dhaqanka ka bacdi wuxuu u baahan yahay aragti kadib u samee kadib halkan maxaa ka helaysaa farxad qofkii malaa'igto ku ducaysa sababtoo qof bilo aad ka farxisay waxaas dib wax wanaag yihiin iyo ajar ku soconaya sababtoo waxbaad sadaqaysatay ulanayood wax kasta oo qabanaysid sadaqa ahaan sababtoo inay wax ka baxaan inay isan sadaqa ku noqonin inay wax ka baxaan haddana sadaqa ku noqonin wax macquul maahan waxa arkay bariyahan qof ku keenaya alaab haddana kaamina kula daba socda kuma rabo in wax ku sii kula ma rabe wuxuu ka rabaa fiuskas aad u ka helayo wax caadi wax macquul dhici kara sababtoo aniga maanta hadii uu qof ila yimaado in uu wax isiyo kadibna uu kaamira wato dinidadu waxa galaysa qofkan inuu adiga ku faa'iido rabaa sababtoo qofan islaaha tahay aniga hadii maanta qof isiinayo ma jecel inuu kaamira u siiyo sababtoo si serious oo soo isiyaa rabaa rafid inuu isiyaa rabaa waxay si anigana aan hadhow u faraxsanaado laakiin dad kana kula furlastusaya wuxuu wax public sidana wuxuu hadii wax public yihiin male wax public hadii yihiin wax faa'iido male qof kasta kuloo qofkan wasaas u dhaaya si awalahaaga oo farxid baro wanaagiisa xumaatadiisa iyo wuxuu ku farxahayo waxay niyadiis ku xiran tahay aba maasna walaalkayga Soomaaliyeed marka damaca qayrka yahay dunidan maare adna ma hadibu guur oo hankaaga duuduub darajada wax ka xiga oon dadaal ahayn